السلام عليكم maanta waxaan ka hadlaynaa caalimka weyn ee khabiirka xisaabyahanka islaamka ku faano waa Maxamed bin Musa al-Khawarizmi sheekhana waxa uu ku dhashay magaalada loo yaqaan Khawarizm oo hore uga mid ahaan jirtay boqortooyadii Persia haddana dhacda eeriyada Iran ay ku taalo haddaba ikhtiraacyo badan baa uu leeyahay sheekhani waxa kamid ah aljabrada waxa kamid ah lambarradan hindiga ama carabida hadba sidaad u taqaano ولمبرهدن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iyo 0 hadaba habku ikhtiraacay waa sidee habku ikhtiraacay waa hab xagla ah lambar kasta waxa uu sameeyay xagal u dhiganta inta uu yahay iminka tusaale ahaan 1 oo kale ama 2 wuxuu ka kooban yahay hal xagal 2 wuxuu ka kooban yahay laba xaglood 3 wuxuu ka kooban yahay 3 xaglood ilaa lambar 9 oo isna 9 xaglood ka kooban marka lambar kasta wuxuu sameeyay xaglo u dhigma inta uu yahay hadaba lambarka aadka loola yaabay ee sheekhan ikhtiraacay ayaa wuxuu ahaa lambarka eber kaasoo u samaysan qaab gooba ah oo aan gabi ahaan lahayn wax xagla ah iyadoo Yurubtu waqtigaas lambarka eberka ay diiday isticmaalkiisa iyadoo u sababeynaysa wareegan zeroga uu samaysan yahay una haystay inuu ku keenayo lacnad iyo dib u dhac waqtigaana waxay ku jireen Yurubtu dark age ama waqti xilliyadii mugdiga sida ay xaalku ahaa ilaa markii dambe uu soo baxay caalamkii xisaabaadka Talyaaniga ahaa ee lagu magacaabi jiray Leonardo Fabinacci Pisa kaasoo faafiyay buugiisa sanadii 202 oo uu ciwaan uga dhigay Liber Abbasi kuna sharaxay xisaabta iyo muhiimadda ay Everton u leedahay waxaanu Fabinacci Pisa wax ka soo bartay magaalada Bejay Algeria halkaas oo ay ka buuxeen khubaro badan oo khubarada xisaabaadku ay kamid yihiin waxna ka soo bartay lambarada carabida iyo amal hindiga waxaanu soo gudbiyay isticmaalka Ebon nidaam xisaabeedka Yurub waxaanu ku qoray Latin ahaan Zyver markii dambe kelmadii oo la sii horumariyay ay isu bedeshay 0 qarnigii 15aad